السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمد الصوماليات هبي وناكسن إن شاء الله تعالى سود هذا waxaan rabaa inaan faahfaahin kooban idinka siiyo qaabka mukhtaar ruubow maanta loo qabtay insha allahu tacaala. runtii waxaa muhiim ah wax allaale wixii meesha ka dhacay inaad wax ka ogaataan waa muhiim. hal kelmad oo been aan ilaahay iguma og. 5 mitir ruuxii u jiray markii la qabanayay mukhtaar ayaan rabaa insha allahu tacaala iyo soo dhawaada. hala soo bato insha allahu tacaala, soo dhawaada. soo dhawaada, hala sheer garay barnaamijka. waxaan rabaa waqti u dambeysay muddo 5 daqiiqo ka hor hala sheer garay, hala sheer garay, hala sheer gareeyo, hala sheer gareeyo dhammaan. jaaniska uu isdhaafsiiyey mukhtaar ruubow xaqiiqiyan waa jaanis aan mar dambe soo mari doonin wallaahi billahi taala. ya doqon sideediba waa doqon, allah doqonay dadkaa deli. ya jaanis waxaa dhaafay oo very important ah. ya dabaaldegi ugu weynaa oo ka bilowday magaalada baydhabo gees min gees. dad baa dhintay. ya hala sheer garay barnaamijka, hala sheer gareeyo. nabadaanaas lanugale walaalayaal. hala sheer gareeyo barnaamijka insha allahu tacaala. waxaan rabaa inaan idin faahfaahiyo wararkii u dambeeyay magaalada baydhabo. mukhtaar ruubow yaa soo wacay intaanan la xirin ka hor, intaanan sharafta laga qaadin ka hor yaa soo wacay. mukhtaar ruubow yaa u aqli celiyey. mukhtaar ruubow yaa wax u sheegay. wallaahi oo billaahi tallaah jaaniska ninkaas isdhaafsiiyey ayaa wuxuu yahay jaanis aanan argagixiso dambe soo mari doonin. ruux argagixiso ah oo dembiile ah oo khaa'imul wadan ah wallahi inuu soo maraynin. mukhtaar ruubow intaan la qabanin ka hor 3 biri ka hor waxaa soo wacay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo ee soo wacay. kelmad beena idinkuma daraayo, hal kelmad idinkama dhimaayo. wax allaale wixii la yidhi ma rabo inaan nin jeclaysi aan u hadlo. aniga dowladda waan taageeraa, laakiinse taageerada dowladda aan taageerayo taageeri ay xad leedahay waa macnaha. ma dhaafsisino rabitaan dowladeed iyo dowlad inay shaqeyso rabitaankeedii ma dhaafsisino.
tolkaygina inaan eed ka galo ma doonayo. dadkayga waa digil iyo mirifle, deegaankayga waa koonfur galbeed, lagama yaabo inaan eed ka galo, laakiin wixii runtaa waan sheegayna hadduu ilaahay mar walbana tolkaygii waxaa ku dhaco ama qabsado hal sheergeeyo barnaamijka waraabihii waraabadadow bahalka la dhihi jiray oo ninkii intuu ilmaha ka qaatay oo galabkii la hadlay meeshaan waraabaa jooga iska ilaali intii la yiri dhagaha istaray ood adkaysi yiri waraabihii nafsidiisa u yimid ood iska adkay buu yiri ilmihii intuu ka qaatay subaxdii markuu waraabaha asigoo anugii cunay buu u yimid ninkii markaas wuxuu yiri shalayna waa ood xumeed shalay digil mirflehaygiyow tolkaygow shalayna waad ood xumeed buu yiri xalayna waad orod xumeed haddana waad af xun tahay tii baa ku dhacday tolkaygii koofiyad ma gashtaa mase waa iska dhaafa halo warbixin saan maa kusii wadaa ama se waa iska dhigaa idinkoo raalli ah ma gashtaa haa ama maya koofiga migu jirayaa mase waan iska dhigaa kuwa ahtamay warkooda kuma jira aniga ha is cunaan ayaga iska dhaaf kabteen okay walaalayaal marka waxa waaye xalayna waad orod xumeed haddana waad manaa shalayna waa ood xumeed tolkayga waxaa ku dhacay shalayna waa ood xumeed xalayna waa orod xumeed haddana waa af xun tahay tolkaygii horey baan ula hadlay habeen baan la hadlay maalin baan la hadlay rabbi innii dacawtu qowmii laylan wa nahaaran barnaamijka hala sheergareeyo waxaa ii waramay oo ilaahayna igu ogyahay maalinka qiyaamana aniga laisoo istaajinaya ruuxii 5 mitir mukhtaar u jiray oo saacadan baydhabo joogo oo aanan magaciisa sheegaynin oo ruux Soomaaliyeed ah abaabuliye shirka ku jiro guddiga shirka uu kamid yahay ayaa ii waramay aan idin soo bilaabo marka madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed baa soo wacay roob 3 bari ka hor waxaa la yiri madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliya nabadii nolol asagoo respect gareynayo dadka Soomaaliyeed ee deegaanka koonfur galbeed degan horta koonfur galbeed asli ogaano ma degino kaliya mugtahay digil mirfil kaliya ma degino Soomaali oo dhan baa degan meeshayda qabiil aanan degneen oo Soomaali ah koonfur galbeed yani haba yaraatay ma jirto xaqiiqiyan dad badan baa degan laakiin digil mirfil ayaga macnaha waxay isla haysiyaan ama ay yiraahdaan meesha kaligiina degan laakiin dhulna inaad kaliga deganaad ma ku dhismaayo barnaamijka waxaan codsanayaa share 610 iyo labada qof warbixin xasaasi soo socoto hala share gareey barnaamijka hala share gareey 600 oo kale waan ku soo dirsantaa insha Allah share tan loo badiyo ma garat wuxuu u jiray ruuxan ii waramay 6 mitir buu jiray ama 5 mitir waxaan dhameen madaxweynaha aan gadaal u laabtay ayuu soo wacay Mukhtaar la hadlay Mukhtaaro adoo xanuunsan go'doon ku jiro oo dhibaataysan adduunka dhan laga soo xirxiray ayaan duur ka soo qaaday ma garat passport diblomaasi baan ku jaray ma garat taladii dawladdii Soomaaliyeed waa diidan tahay haddana waxaad bilowday kaadoon shaabiyan inaad gobolkii qalalasaad ku abuurtid arrintaas ayada ah arrin dawladda Soomaaliyeed mana muxuu ah dhibaato ku awal waxaan ku leeyahay anigoo ah madaxweynaha dalka Soomaaliyeed dalkan waqtigan xaadirka aan madaxweynahan ku ahay biri laga yaabo inuu ruux kale madaxweynuhu ka noqdo inaad adiga wax ka noqotid laga yaabo talo iyo tusaale loo baahan yahay adduunka balaan A iyo balaan B iyo balaan C baa jiro ma garat waxaad ku degan tahay balaan A waayo inaad madaxweyne ka noqotid koonfur galbeed Soomaalina waqtigan xaadirka ah una qabateen baa saaran
beesha caalamka urur goboleedka IGAD urur goboleedka la yiraahdo way ku diideen urur goboleedka IGAD haddaan afrikaan ka soo qabto urur goboleedka IGAD todobada dal la isku yiraahdo way ku diideen sidaas daraadeed Eritrea cunaqabataynta waa laga qaaday Soomaaliya cunaqabataynta way saaran tahay ma isweydiisay baa leeyahay madaxweynaha dhaqay bal idageyso ya warkan si fiican u dhageysto waxaa la yiri baleen intaad ka tanaazushid baleen B aan ku wada hadalne soo dhoof diyaarad baan ku soo dirayaa noloshaadii iyo wax walbo waad ogtahay inaan meel ku dajiyay inaan staff ku sameey kuwii adiga aad abuurtay dalkan aad u sameysay dalkan kuwii adiga aad ku abuurtay ayaa dalka Soomaaliya maanta caruurtaadii baa dib ku hayay buu yiri bal u fiirsado kan hala share gareey barnaamijka dhamaan waxaan codsanayaa page gurmad qaran like hala saaro barnaamijka hala share gareey insha Allah ta'ala ya hala share gareey hala share gareey dhamaan inta ku jirto hala share gareey insha Allah ta'ala si umadu wada gaarto sababtoo waxa kale rabaa inaan ka hadlo boqoshadii madaxweynaha wadanka Eritrea inaan in ka taabto sida yaani muxuu ahaa qiimaha loo soo dhaweeyay iyo kuwa ku xumaaday iyo kuwa xildhibaanada waxa gubaayeen inaan insha Allah ta'ala inaan sheego ayaan rabaa haduu Ilaahay waxa gubaay kuwaasna inaan ka hadlan rabaa rag baa ilaa maanta live ku jiray oo warbaahin gaar ah intay sameysteen ba maanta oo dhan 3,000 oo qof ba daawanaysa halkii marmarka nabad iyo nolol ayaa ka badan Soomaaliya waa 9 milyan 9 milyan 8 mana 12 milyan waa la sheegay 12 milyan waa hubaal 12 milyan inay nabad iyo nolol yihiin waa hubaal insha Allah ta'ala share gareey barnaamijka walaaliyaal muqtaar madaxweynaha baleen B baan ku wada hadlaynaa imaw diyaarad baan ku soo dirayaa wixii laga soo gudbay meeshii laga soo qaaday go'doonkaad ku jirtay iyo wax walba markii laga soo gudbo beesha caalamku waa diiday inaad adiga tartantid gabi ahaan sidaas daraadeed madaxweynaha xal buu raadinay Soomaa bulsho inuu kiciyo ma rabin qabiil inuu guduulaan ku ahayn inuu san beel gaar ahaan target u ahayn kuwa maantayto afxumadoodii aan arkay oo digil miraflaha aniga aan ka dhashay oo ay leeyihiin dawladda inay fool xumeeyaan oo ay leeyihiin waana lagu soo duulay Shariif Sakiina la tuuray Jawaariya la tuuray Muqtaar Rooba xiran haddana mursal ba markino on process ku jira ku hadartay Soomaa kadaabiin waay aniga ku hadlay magaca digil mirafle ku nool dunida daafaheedii وكذابين ما قرأت وكذابين أو شيطان نمو نمو إني فافيان بالشدة نحن الربان حديث شريف سكين أديك كسري أو إلهي أوري السري لقا قبتي ما الدولة الدعاء يو وحد كله وحي كله هذا هي إن أدعي سيد إله وحي أديك إسكدر القاضي والدولة الصومالية كادر القاضي يو hogaamiyaha gurmud qaran oo anigu ah inaan duceysaan miya la idin ka rabaa mas waxbaad caynaysa ama aflagaadaynaysa waa sheekadii waraabihii waa xalayna waa orod xumeed saakan waa oo shalay waa orod xumeed xalayna waa orod xumeed haddana waa afxumta waa afxumadii waa ma garta qaaq ila taagay waana lagu soo duulay waxay la soo boodayaan zakariin in la yiraahdo Ismaaciil mid kale dhahaan oo ka soo goostay shabaabka iyo ii sheeg adiga ku koox ah iyo Sheekh Shariif war dadkaas oo dhan munaafiqnimo uma dhaqmina way is cadeeyeen waan toobad keenay bay mana jagada ninkan hadeerta u tartamayo mid la mid ah ruux u tartamay habeerada kuma jiro Muqtaar Roobo inuu askari noqdo inuu diiday malaha waqtigan haadirka hadda idin sheegay hala sheegay barnaamijka inuu askari noqdo oo amnigu ka qayb qaato balaayadii asaga mar hore abuuray wax ka sifeeyo oo tuuto gashto inuu diidan malaha asagoo dawladda ka marqaadanayo inuu tuuto gashto oo dagaalka qeybkiis ka qaato oo nimankan cadawga khawaarijta asaga dhalay in la xoreeyo inuu diidan malaha hadaba garad laakiin koonfur galbeed madaxweyne ka noqona koonfur galbeed war meeqa gobol way
meeqa gobol koonfur galbeed aqli xumo garaad xumo garasho xumo fikir xumo ya aqoon la-aan ayaa ku xambaartay inuu tamaniyo xil aan asaga qaadi karin war dowladda Soomaaliyeed maantayto cadow kasto saas ugu hortaagan hilibkiisa in la cuno ayaa la rabaa waana la cuni haduu ilaahay runtan idin sheegay ala sheegay barnaamijka ma garad madaxweynaha wuxuu ugu jawaabay markii jawaabtiisa raba inaan bixiyo sheer talmar u badiyo inaan jawaabta bal madaxweynaha miya arintaas u qalanto madaxweyne dal miya saas la dhihi karaa Soomaaliya madaxweyne qaran miya la dhihi karaa kelmad noocaas oo kala hay'ad lama dhihi karo ala sheegay barnaamijka madaxweynaha wuxuu ugu jawaabay Mukhtaar wuxuu yiri niyow aniga Muqdisho ma joogay buu yiri garbahaarayna ma joogay buu yiri waxaan jooga balmaangaab inuu yahay waxa meesha joogay ciidamo amisooma joogto yey ka amar qaataan waxay ka amar qaataan si toos ah sheekidii hore iyo amisoomay maana qabaa'ilada Soomaaliya ka amar qaad ama qabaa'ilada waxay ku diraan samee ma jirto ciidanka amisom ama Ethiopia ha noqoto ama Uganda ha noqdo ama Burundi ha noqdo ama Yahuud ha noqdo wax allaale wixii ciidan oo Soomaaliya dhulkeeda jooga ama badda iyo berig taliyahooda waa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed horta inaad aamintaan ma loo baahay ma garad taas horta inaad ogaataan taliyaha ciidamada qalabka sida haday amisom yihiin hadday dal joogaan iyo hadday badda joogaan iyo hadday beriga joogaan iyo hadday cir ku jiraanba waxa taliyo u ah madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa taliyahoodii ah wax ma garatada oo tolkaygii baan rabaa inaan wax u sheego ma garad waqtigii qabiil yani wax difaac jiray ama tigrinka mirirtay daraadan u sheegay barnaamijyo badan oo soo dhigay baa jiray si drondori ah si aan ugu reebo cadowgan aan ugu fujiyo tolkaygii digil imrefle ayagoo arkayaan madaxweyne yani muxuu ahaa ummadan Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliyeed rabitaankeedii ku yimid Cabdiasiis lafta gareen ayagoo arkayaan inay indhaha ay dhooba iska mariyaan oo yiraahdo awrabo fadaan ila soo istaagaan waa garaad xumadoodii way iyo dadnimo xumadoodii way ma garad waxa intaas iga sii daran kuwa qurbahan ila joogo oo argagixisadana taageerayo hadday noqon lahayd kuwa wariyaal ah hadday noqon lahayn naago oo yani muxuu ahaa caruurtoodii iyo nimankooda hilmaamay oo Yetebori iyo meelaha shir ku qabtay oo aad aan isu naqaano ayaan la yaabaa aniga kuwaasaan la yaabaa garaad xumadoodii ma garad madaxweynaha wuxuu ugu jawaabay meeshaan digil imrefla iskale bay dhawaan joogaaye haddaad igu imaan kartid igu imaaw madaxweynaha okay biir waa ka aamusay isla markiiba taliyaha ciidamada amisom joogo magaalada baydhabo mar baa la siiyay ciidanka booliska mar baa la siiyay Soomaaliyeed oo meesha joogo ciidamadii danab amar baa la siiyay dhammaan heegan baa la wada galay qorshahan markay qorsho ciidanka maal yani muxuu ahaa ku wada hadlay xalay ayaa arintan gabigeeda la soo gabagabeeyay in nolosha lagu soo qabto qaabkee loo qabtay marka aan u soo daadigo hal mar hala sheegay insha Allah si ay maana muhiimadeedu waxaan target ka saari rabaa insha Allah xildhibaanada maandeeto madaxweyne siyaasad horqay baa xamar yimiday ha dictator waaye ma arkin muxuu ahaa oli baziin baa waxa lagu sheegay rabaa Farmaajo dictator noqol la dhihi rabaayay war waxaan dad miya war waxaan mudsudugaag war kuwan dad maaha ya waxaan waa wacdo afadhimatay way wallahi billahi taala hadii marka hadalkooda uu noqdo madaxweyne dal oo wadanka soo booqday ayaa ma arkin muxuu dictator war dictator iyo dictatorship iyo wixii la doono dalka oo hadiiba madax qof allaale qofkii madaxweyne dal ah war anaka yahuud waa xiriirnay waa imaanaysa wadanka ma garad Israa'iil haday imaato eelborg ma laga celina way soo dhaweyn hal mar kun ka gaaran kontin shambisa dhimana hal dhameystiro ku dhufo share hal mar all ma garad hawaaya waxaan rabaa xalay marka qaabka ninkan arintan xalay la dajiyay
qorshahan xalay laga shaqeeyay ciidamada qalabka sida ee danab ee maalmo ka hor meesha la geeyay heegan bay ahaayeen madaxtooyada ayaa saaka waxaa la wacay dhammaan intii musharaxiin ah musharaxiintii oo dhan baa la wacay waxaa laga wacay madaxtooyada si warqadahoodii aqoonsiga loosi iyo khudbooyinkii iyo waqtigii ay jeedinayaan 6 musharax ay ahaayeen saaka 6 ay ahaayeen hadda waxaa soo hartay 5 baa soo hartay okay 6 musharax waxay kala yihiin mukhtaar cabdiasiis laftagareen oo ah madaxweynaha maamul goboleed koonfur galbeed aadan suransoor iyo ninka la yiraahdo ibrahim yarkay dhahaan ibrahim macalin iyo xuseen kushuk 6daana isku soo hartay warqada la dinsiina meesha imaada la yiri baabuurtii musharaxiintii kala way gashay ninkan gadaalu ka yimid dib buu isu dhigay wiil dheer war arkaysan oo maleena oo doqonka ah oo gadaash istaagnaan jiray waa taqaanin Soomaa ki doqonka ah ya suspected baa galay wuxuu yiri albaabka loo xiro albaabka baabuurtii meeshii jack pointiga la joojiyay markii la istaajiyay gudaha madaxtooyada ay soo galeen gaarigan yaa saaran musharax mukhtaar saaran baa la yiri ciidamada Ethioopiaanka ee xarada joogay ayaa meeshii timid gaariga mukhtaar soo degalay waxbaan ku weydiinaynaa ala soo dejiyay barnaamijku yimid bal aabta meesha ka dhacday bal fiire ilaahay kugu dhaarshay ya banaankan waxaa joogo dhowr baabuur oo technique ah oo asaga abaabushay oo samaystay iskuna haleynayay inay wax tiri karaan technique-dii waa la qabtay dhamaanteed hubkii baa laga dhigay 6 kamidana waa la dilay allahuna ristan leenahay ودد لك خالديوا إلا خالد كي شباب نوان أرني كان ولي واصل سما حقيقيا إلا هذا وصل سما يا وينان لها أرنت وينان لها وأرديمات كلا صبيح لها سما وني كان أبوران لها سميسان لها كفافين لها ومد كوبابين لها قاب نوع سيهجت سما أوكي مختار madaxweynaha waxaan ka hilmaamay hadal wuxuu u diray 5 sano una qabateena iyo adigoo madaxweyne laga dhigo Soomaaliya waxa uu yiri ugu dambeyntii 5 sano hadda kadib una qabateen Soomaaliya oo la saaro waxa waaye adigoo madaxweyne laga dhigay iyo 5 sano inaan doorano inaan adiga ku doorano labadaas noqonaysa buu yiri madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed xukuumadda nabad iyo nolol ma garad warkii inuu u dhig nuglaada laga rabay uu diiday qabashadii markii uu soo degay isla markiiba askari Ethiopiana ayaa gacanta saas u qabtay waa AMISOM ah ila askari Ethiopiana waa AMISOM askari AMISOM ayaa wuxuu yiri soo socaaliri baawarkan fuul baaliri ma koray buu xogo inuu gacanta saas dhaxu damay xarfaantii gaariga u saarneeda kii bodyguard ka ahaa sharpshooter lagu qabtay oo doorbin ku xiran wadnaha loogu hayo uu arkay wadnihiisiiba ku adanaa qoriga sharpshooterka wadnaha loogu aadiyay waa kii dheeraa waya oo doqonka ahayo asaga waardiyaha ka dhigtay ma garat tartiib u soo dejiyay bastoolad xun buu watay waa laga dhigay wadaadkan markuu soo degay shaatigiisiiba saas loo shaati futushaari cad buu watay waa la jeexay dhacdadii baa waxaan idinkaga sheekeynay waa qaabka wax u dhacan waya ya كليب حتى إن إن شاء الله صاحل إن نسكتين هدوي لاهيد شاركي بساس لوجو جاهي شاركي سيبا إدار لوجو حري والله وبالله تالله ما قلت السوق هالفنان ذو أو لو قريمي وحسم على كلي وحرصن تهاي أي قار تلقبتي أفر أسكري إثيوبيان بأوتمت اسم مركي ماشي وحي مدي رانجرز كاها إيه صوماليات إيه رنتي قدم رياي isweerareen baa leer lagu madilay ayaga ciidankii baa u yimid oo danab ayaa meesha yimid danab baa isla markii la wareegay muddo 3 saacadood oo kaamila ee laboorka lagu hayo way loogu hayo marka isweydiin way ee laboorka loogu hayo 3 saacadood waxa loogu hayo madaxweynaha Eritrea ayaa Muqdisho booqasho ka yimid ee laboorka aad buu mashquul u ah markii madaxweynaha la galbiyay
tartiib يا دورو محلي دورو أما دجاجة دورو كيغلي أرتا أما كوغلي أرتا أم ما يبغول بولغريات أما الوايه يعني مختار هو أما حقه أما حقصله ديار دي وهي بالديار سنوات ست ترتيبة والدجناشة أي ديار دي سي كرسي يسي أسوق أنا أحسن إنه حرية هي أجادي إنه سنتبرهين أجادي إن ما أنت يتطل يقرب اسم بدبادين كرين أو جعنت الدولة الصومالية وكجر وحبسدي أي ست ترتيب كرسي يسي وغفرستي يا ست ترتيب أي كرسي يسي وغفرستي أسوق نقاقيو وحلي راد وصل سمين كرين أي ست ترتيب مركي وفدي مدحوينيه إلكتريا السياسة فورقي البورق لقصاري مدح القرن كالبورق كبحدي أي ديار سواعة دقتي إسلام مركي بباورة ماشي وديار سنة ولا قاعدي إسويدين محمد حقه لو حري حقه لو حري هرت قرابيز وحنو شيغيا دad ka qabiilnimo inay ku difaanay rabaan waxaan inaan u sheego dhaqdhaqaaqin haduu bato muxtar wala toogan wala dili hadda idin sheegaani haddaad murunkiin iyo qayladiin iyo gabgabtiin hadday badato iyo fidna abuur iyo jidgooy iyo mooryaanimo iyo tuugnimo haddaad bilowdaan wala toogan muxtar sababtoo waxaana tooganay dawladda ma tooganaysa sharciga toogan saan hadda naaw dilin yahay sama sidaan uu ka dilin yahay ha ma garat dalka dawlad baa ka jirto حسن داير أويس دولتي مدعوين حسن الشيخ محمود أي حبسي ما فرماجة صحيح حسن داير أويس أسويديني يا بلا ولا لا هوية ويكون ماسين أي جودي ويحرتين سما أي جودي ويحرتين دولتي بيكون أديجين أي جودي حبسي بقى وجهه هذا ندقل من فلان هاي أي جيني إنه ماله وه وكذا دم محمد أنا نقول عن سما أيجيني وأي كنه أنا قدر يما أنا يا وحاول يجيله وحالي قضاء السجا أسكون بده السجا أسكون طبعا ده بصراحة وحلاي هاي قوة بالأهان وحكسنا مختار قبري حجلين هدلين إلى ما حد دولة الصومالية ويدين تحجلسها respect بيدين هيستا يا respect وين بالدين هاي ما قرأت هلا الشرقيري برنامج يا ما قرأت قرباش وصوماليا ما ونقبتين ما أنت تقرنتو إن مختار روبو دراديس لو صار أنا الصومالي كان إسكبدا قبل كان وكونفور قلبي اللي رادو United Nation إمامه كوب مالك إني قاس كرسي كفرست ما قرأت United Nation أولا مات اللي UN كأنا كلا تلي وصامه ما قرأت برنامج كان ميغاسنا نصورني إن كان إن قعنت كل جنو وحام باللوني سنة كي هراء مركو سودي إلا ما لقيت جو هدرتان هل مالين أنيجا ستمان جودي يسكوري جماعة جودين ما قرأت ورما إن النوم هاد علسان الدولة الصومالية أرودو عيسان أو أنا إيدو عيسان أو أترادان إلهي خير سي مين إذا كم ظنها بس إن ميلها قاف لقى دوتان أو ما نقابل ما بعرفش مايا وحان إذن لا يهم وحان إذن لا يهم إنك يوديها شاتي قبل بسيبه عنده بشار كيسي أو ستشاركها عدا امتصاص عسكري وجه حسام قبت رقوسي أي وجهك كذا دولة والله جابي لابديس قامود كتينا ذا أيام نبلغ سيء كدب جاري بولت بروف أو ما أركنه سيلفر أو تاجنا مدحتويد ماشي مدحتويد إيد كذي الباب كان أو لنا قلبت حقي سلوغ ضحو جاري تاجنا بلوجي ده سيدي با جاري جودي سلوغها إن مدة ما قلت رجع بنانك جوجي حبضي كذي تبيان جي بحبض السوق كذي إذا مدة أمسون أي حبض كذي لح كم إذا نفتح كلام ده لكن كل جن وحتى قانا ننكي أو ديرو وافق كذا أو ديرو وابد بعد ننكي ديرايو أو أسيق ورديا
wuxuu ahaa wiil markii runtii digil mirifla oo aad u qiimo badan buu ahaa wuu badbaaday kolba uu iijada umaleynaya arew sigitay mardam inaga tooy ada muqtaari wala mid gadaalisa surunto iska ilaaliya ka rafadeen af maymaya waan kin ka sheegay idegayte hoobad idegaas is ilaali ya is ilaaliya ka rafadi indaba suruntay mardam wala indaba surumaan adoo madaxda qaranka adaragaas okay muqtaar waxa lagu xiray meel hadda aniga waan ogahay laakiin inaan sheego waa arrin xeelad yani ma wanaagsano ma wanaagsano inaan sheego ma sheegayo xamar ku xiran yahay meel buu ku xiran yahay ilaa ay galabta si sharaf darro ah ayaa loola dhaqmay markii u dambeysay salaad tukuday musqula fade ayaa warkii u dambeeyay oo laga helo soo xabsiga ku jiro salaad tukuday musqula fade ya nimin kamida niminki xabsiga waardeenay oo loo tawbaray naxariis daro oo loo tawbaray yani muxuu ahaa qaab naxariis daro loo tawbarayna sibay ula dhaqmeen ma garatay gudaha tuunji loo geliyay meeshaas ku xaara liir macnaa ku kaaday ku taala arintaas ayada waxaan codsan lahaa marka in meesha lagu xiraayo ay noqoto meel yani muxuu ahaa oo macquul ah insha Allah ta'ala inaan la booqan karin insha Allah ta'ala la booqan karo cid u tii karta beelata mala la tii karo ma garatay waxa kale oo inaan ugu bishaareeyo dawlad kale looma dhiibaayo dalkiisi baa lagu maxkamadeynaya dalkiisi ayaa lagu maxkamadeynaya in kasta dirtan dawlado fara badan ay soo codsadeen in dalkoodi la geeyo dawlado fara badan ayaa galabta soo hadlay ay leeyihiin anaka haynayno anaka aan la siiyo anaka aan magan gelino ma jirto arintaas ayada waa la diiday dawladda Soomaaliyeed arintaas ayada kuma kici karto mana sameynayso insha Allah ta'ala in kaas asiga waxa laga gudayaa nafsigii ummadan uu ka galay ayaa laga guday duu ilaahay nafsigii asiga ummadda Soomaaliyeed uu ka galay in laga gudo waa laga marmaan ya marka waxa waaye ninkii muqtaar ahaa qaabkaas loo qabtay qaabkaas ayuu aawayto xabsi ugu xarooday ka horna waanadii loo soo jeediyay madaxweynaha la soo hadlay Soomaaliya waqtigan haadirka una qabateen 5 sano kala maxamil karto beesha caalamka meel walba adduunka oo dhan baa ku diiday raggaasad ku jirtay adoo rafaadsan oo duur joogo oo dhibaataysan baan diyaarad ku soo diray wasiir xukuumadeeda kamid ah Cabdirashiid markan gaashaan dhigan ku soo diray diyaaradan kugu soo qaaday waa lagu daaway adoo jirin oo rafaadsan halkaan ku keenay meelan ku dajiyay amnigaaga suug hadda aad kula hadli karta imaa xamar imoo baleen iska dhaaf baleen biiban ku wada hadlayna haddaad dal xureynayso haddaad ciidan noqonayso haddaad bal wixii adiga markaas adiga aad xamili karto laakiin jagadan madaxweynenimada waxaan rabaa inaad banaanka aad ka martid wala la hadlay madaxweynaha wuxuu ugu jiwaayay meeshan Garbahari ma madaxweynahan Garbahari madaxweyne kaliya uma ahan Soomaaliya dhammaan madaxweyne u yahay waxaan ugu celinayaa marka waxaan rabaa inaan u soo jeediyo xildhibaanadii uu maanta fiqi hogaaminayay ayaan rabaa inaan waan u soo jeediyo xildhibaan baan ahay waxaan doonaan ku hadlayaa adeer arintaas waa la diiday ma garatay arintaas ayada waa la diiday ma garatay dalkan shaakidii hor ma jirto dalkan dawlad buu yeeshay ma garatay markaad leedahay hatta farmaajo markaad leedahay ani waxaan u arkaa akhlaaq xumo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed inaad tiraadid haddii mar walba ay noqoto intee jeedkii la ka hoy xaaladada ay noqoto maxaa madaxweyne u imaaday maxaa xamar loo soo booqday xamar inay go'doon ugu jirto maartay nolkeeda dansanaado ya saas maartay taas waa la diiday dalka dawlad buu leeyahay hadallada afka ka soo baxayo Muqtaar Roobow oo ka taati ka badan ka dhib badna oo dhaalim ahaa ayaa maantayto sidii shimbir ama loo qabtay Cabdiraxmaan Abshakuur oo darxal la waardeenayo ayaa gurigiisa hortiisii meedka la waray ya adugtina waayna ma garat generaalka senatorka runtii sharaf gaar ahaanad biga mudiyay Cabdicasiis Cawaale Qiibdid khayr Allah siiyo runtii ma nabi ayaa la dhibaatay maana markii yani muxuu ahaa waa lagu qaldamay baa la yiri in kasto yani waxba jiray
fiqiyo miskiin baa tahay adiga iyo kooxda kula socoto iyo kuwa adiga aad baadiyeynayso durbaanka aad u tumaysid oo xildhibaanada ku jiro aniga waxaan leeyahay hadalladiin ha miisanaadaan dalka Soomaaliyeed 11 milyan 12 milyan waa 11 milyan waa nabad inool dadku waa bislaadeen ka qurbaha joogo ma garatay Soomaaliya dawlad ahaan baa loo aqoonsaday aniga maanta waxaan kala soo hadlay xarunta United Nations Geneva ayaan joogaa in kala soo hadlaya waxaad ku hadlayso maanta ito meel waxaan tagay oo niman community Afrikaan ayaan u tagay galad hadalladaadi sidoodii oo nool baa la turjumayay oo la dul taagnaa marka lama ogo cidda adiga aad ka damqanayso ama aad gacan siinayso waxaad mooshin aad ku keenayso lama garanayo ma la garanayo iscaday ma shabaab baa tahay ma Soomaali baa tahay ma dawladda xildhibaan u tahay ma shabaab xildhibaan u tahay iscaday isku day inaad iscadaysid ma garatay waxa ku hadlaysid wax oo dawladdan inay Muqdisho joogto adigana aad joogto oo aad sii joogto no waxa soconay ma garatay gobolada sida galgudud oo kale waad aragtay dawladda Soomaaliyeed mudaharaadka ku wadaan waa laga soo horjeestay galgudud soo kuma soo jeedid galgudud gaalkacyo sidoo kale dawladda Soomaaliyeed waa laga taageersan yahay galmudug dawladda Soomaaliyeed baa maamusho soo saasma hirshabeelle dawladda Soomaaliyeed baa maamusho koonfur galbeed dawladda Soomaaliyeed baa maamusho Puntland iyo meeshii halkaan ahayd oo aniga gudoomiyaha baarlamaanka aan ka maamulkii la afduubay oo xalaash ah azani la dhihi jiray oo aniga gudoomiyaha baarlamaanka aan ka ahaa ee jubbooyinka waa loo talinayaa Ilaahay waa loo talinayaa ma garat in laga aamusi doono ha u malaynin processkeedii wuu socdaa nabad iyo nolol way ku tiri jirtaa Puntlandana waa loo talin labada maamul waqtigan xaadirka wali geesiyar u taagan kuwii kale geesihi waa laga jiray xidididii waa laga siibay waa yani muxuu ahaa waa la muslimiyay ma arkina muxuu ahaa waqtigoodii iyo timekoodii waxa uu noqday inay madaxweynaha dawladda federaalka inay yiraahdaan oo Madaxweyne Farmaajo dhihi jireen hadda ma dhahaane madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre inay yiraahdaan hadda waa laga hayaa ma garatay ya raawin waxay ku maamaada ama dabaraa waxay ku maamaahan oo ani aan ka dhashay won gumurasheenti gumur bahal ina gumur gel yiraahdo jiro oo looda la geliyo oo aana markii laga keenay oo kale ma garatay marka waxa way dawladda sideediba go'aankeedii aad buu adag yahay go'aan adag bay dawladda leedahay waxaan leeyahay xildhibaanada danleyda xildhibaanada xanaaqsan madaxweynaha Soomaaliyeed baa laga hayaay waxaan leeyahay alla u toobadkeen oo hadalladiina waa qoran yihiin xarunta UN-kan waa laga diiwaan geliyay qaswadayeel hadaad noqotaan arrintaas idinka eedi doon mar dhow barnaamij waxa soo baxayo inaadan safri karin oo laga xayiro aadan ka dhoof ee booro Soomaaliyeed ma garatay ciidanka ku waardiinaya waa laga qaaday ciidamada waa laga qaadan ciidamada waardiinayso xildhibaanada qaaqda iyo quuqda wado waa laga la wareegay markii muxuu ahaa ayaga hays difaacan ma garatay ciidan dawladda Soomaaliyeed baa ku waardiyo askari baa ku waardiyo qori dawladda lagu waardiyo rasaas dawladda lagu waardiyo markaas nag habeenay maalin ma garatay sidii ay oo kale ma loo baahno arrintaas waxaan leeyahay ha ka toobad keenaan xildhibaanada qaswadayaasha ee waqtigan xaadira oo loo bixiyay xildhibaanada xanaaqsan intaasaan leeyahay waxa ay soo haray gudoomiyaha baarlamaanka mursalow iska cazil hilkan kursigan banay kursigan waad ku ceebowday waad ku fashilantay ma arkin muxuu ahaa ceebtaadii intay ku og tahay kun ha gaarsiin baa yiri ma garat adoo ceebaysan oo wiji xun oo karaamo daran ayaad meesha ka tagi doontaa ma garat dadka oo hadda la leeyahay shariifka la tuuray shariif cadow buu ku ah koonfur galbeed iyo ummadda Soomaaliyeed waa la tuuri sababta odayaasha damiir laawiyaasha digil iyo miriflaha ah waxa laga sugayay
inay ka damqadaan waxa dadkoodii iyo deegaankoodii lagu hayo inay ka damqadaan ay ka hadlaan baa la rabay $300 intii loo qiibiyo ayay hoos madax u foorarin jireen sooma $300 ma garat Shariif Sakiin wuxuu yiri $600 ka badan ma bilis yaa lan digil milafle oday digil milafle $600 ka filan bas tantu ayuu dhihi jiray ma garat war ma $300 baa nagu iibsan kartaa anakoo nool oo dad wax yaqaano wax bartayaan no idin kama yeelin haduu Ilaahay idmo ya $300 baa idin qanciso kuwii darab oo kala oo ku jiray odayga adeerkii aadan bid la dhihi jiray ee xamar joogay roob hala doorada roob waa fadaana muqtaara fadaana tana u dambaysi ma garat fadaana tana ka dambaysi ma garat magaciisi qofkii laga maqlo waa xabsi waxaa kaloo ku daba jirnaa haduu Lisbon wadana kuwii dhaqaalaha ku bixiyay dadkii maanta la dilay dadkii dhintay shacabkii wax gaaray kuwa maalmahan dhaqaala aruurinta fundraising ku jiray oo lacagaha u aruurinay Mareykanka joogay iyo kuwa Yurubta joogo iyo kuwa South Africa joogo iyo kuwa Nairobi joogo hantidiin waa ladina leeyahay waxaan leeyahay dawladdu waxay naga mudan tahay inaan u duceyno cadawgii zaalimka ahaa eeygi maalmahan dhex joogay waa laga dhex saaray Soomaaliya xanoolatan leeyahay dalka dawlad buu yeeshay dawladda awoodeedii bayna soconaysaa qof allaale qofkii reey ku jiro reey maalmeed ha ka baxo hala garab istaago nabad iyo nolol dawladda Soomaaliyeed awaamirteedii baa ka soconaysa maamul goboleed dambe inuu awood yeesho ama xoog yeesho dambe waa la diiday waxa dib noo dhigay nabaabiiyay oo ummadaha caalamka naga reebay waa maamul goboleedyo oo akhlaaq lahayn oo burcadiimeed ah oo zaalimiin ah shaati wajiib badan wato ayaa dhibaatadan oo dhan dalkan u keenay sidaas daraadeed waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolato markii inta maamul goboleedan dhan laga takhalusana xagee loo socdaa cidii maamul goboleedka hore u bilowday yani muxuu ahaa Hargeysa land insha Allah taala ayda ku xigi doonto waa mahadsantihiin والسلام عليكم مصبيحي وانا اغلب بدن انه اسو ديبن ومعقول كوان hadii laga takhalusay inuu isu soo dhiibo waa suweyn haduu ila mصبيحي insha Allah taala aad baad mahadsantihiin insha Allah intii barnaamijka ka qayb qaatay waad mahadsantihiin insha Allah taala gurmad qaran like buu idin ka rabaa inaad like gareysaan page-kaas oo yar aad u jeedaan ba difaaca dawladda Soomaaliyeed iyo inta wanaaga jecel buu taagan yahay waad mahadsantihiin Soomaaliya hamidoodo qabiil wax uu noo tirhab yaraatay malahan qaran baana kaafin karo dalkaanu nabad noqdo oo yani muxuu ahaa khayraadkiisa banaanka la soo saaro ayaa nagu filan karto wax aan Soomaali waxaan ka helno deeqi karhab yaraatay malahan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh